Assalaamu calaykum. Sidee ku kasban kartaa qof aad jeceshahay oo ka sii jeeda dunidan aynu guudkeeda saarannahay waxaa ku nool qoomiyado kala duwan kuwaas oo aan isku diin isku af iyo isku dhaqan toona ahayn balse waxa ay ka wada siman yihiin jaceylka hinashada ama masayrka iyo waxyaabo kale qarniyadii hore jaceylku waxa uu ahaa mid ay dadku aad u qadariyaan aadna u qiimeeyaan waxaynu ognahay in dad badan ay u dhinteen jaceylka halka kuwa kalena dhibaatooyin badan kala kulmeen dadka baalka lama ilaabaanka ah ka galay taariikhda jaceylka waxaa ka mid ah jaceylkii cilmi boodhari iyo hodan qeys iyo leyla cantar iyo ceebla qarnigan aynu ku jirno dad badani waxa ay aaminsan yihiin in jaceylku yahay wax jira halka kuwa kalena ay u haystaan in jaceylku uu yahay wax aan jirin oo ku kooban afka oo keliya oo aanan uurka jirin laakiin waxaa xaqiiqo ah in jaceylku yahay wax jira kaasi oo ka bilowda ka helitaan iskuna bedela dareen ku abuurma qofka qalbigiisa dadka aaminsan in jaceylku aan ahayn wax aan jirin waxaan dhihi karnaa waa kuwa aan fahansanayn waxa uu yahay jaceylka oo aan weli wax jeclaan inta aanan gudbin duluucda maqaalka oo ah sidee ku kasban kartaa qalbiga kaa janjeera ayaa waxaa laga yaabaa inay dad badani isweydiiyaan su'aasha ah waa maxay qalbiga kaa janjeera qalbiga kaa janjeera waa qof aad gaclootay oo isagana aanan u soo jeedin jaceylkaaga ama ku mashquulsan qalbi kale dhalinyaro badan ayay arrintaani la soo gudboonaatay kuwaasi oo qaarkood ku degdegay in ay u soo bandhigtaan jaceylkooda qofkii ay jeclaadeen iyagoo aan isweydiinin maxaa kaaga imaan kara waxaa dhacdaa inta badan in qofkii ay u soo bandhigteen jaceylkooda uu soo dhoweeyo soo dhoweyn aan uurka jirin balse ay ka tahay niyad dhis iyadoo qofkii jaceylka hayayna uu u qaato inuu ku guulaystay jaceylkiisa oo uu helay qalbigii uu gaclooday laakiin muddo kadib ayuu ogaadaa inuusan helin jaceylkiisa oo uu ku guuldaraystay kasbashada qofkii uu qalbigiisa u taamayay taasina waxa ay sababtaa niyad jab weyn iyo iyadoo qalbigiisu soo gaadho dhaawac xanuun badan qaar kale oo ka mid ah dhalintan waxa ay danta ku kaliftaa inay qarsadaan jaceylkooda intii ay guuldaro iyo xumaan kala kulmi lahaayeen u soo bandhigidda qofkii ay jeclaadeen taasina ma ahan mid uu qalbigoodu ku bogsanayo waxaan ku sii kordhayaa jaceylka iyo rabitaanka uu u qabo qofka uu jecel yahay soomaaliduna waxa ay ku mahmaadaa waxaad qarsato way ku qarsadaan haddaba daawade haddii ay kula soo gudboonaato arrintan oo kale oo aad weydo sidii aad u heli lahayd ama ku kasban lahayd qofkaaad jeceshahay qalbigiisa waxaad kaga bogan kartaa duluucda maqaalka oo ah sidee ku kasban kartaa qalbi kaa janjeera sidaad ku kasban karto qalbi kaa janjeera waa ay fududahay haddii aad samayso shuruudahan ugu horayn ha noqon qof ku degdegaa u bandhigidda ama u gudbinta qofka aad jeceshahay fariintaada jacayl nambar 2 waa inaad tahay qof furfuran dabeecad wanaagsan leh nambar 3 haddii aad tahay dumar waa inaad ahaataa qof xishood badan nambar 4 waa inaad tahay qof qurux badan soo jiidashana leh quruxdu ma ahan keliya mid wejiga quruxdu waxaa loola jeedaa waa inaad tahay qof mar walba oo furfuran dhan walbana ka faraxsan nambar 5 haddii aad tahay gabadh ama wiil ku dadaal sidii aad u ogaan lahayd qofka aad jeceshahay waxyaabaha uu xiiseeyo ama balwadiisa tahay adigoo aan weydiin qofka aad jeceshahay balse raadi waddo kale oo aad ku ogaan karto sida adigoo ka waraysanaya saaxiibkii ama saaxiibadeed adigoo aan lagaa dareemin ujeedkaada waxa uu yahay nambar 6 mar walba ugu sheekay qofka aad jeceshahay waxyaabaha uu xiiseeyo nambar 7 ogow jaceylku indha ma lahan qofka uu qalbigaaga raacay haddii uu yahay qof balwadiisu wanaagsanayn ku dadaal sidii aad uga wanaajin lahayd adigoo hadallo macaan kula hadlaya nambar 8 qofka aad jeceshahay haddii uu yahay qof kaa fog oo aad laba waddan ku kala nooshihiin ku dadaal sidii aad u xiriirin lahayd mar walba adigoo telefoon kula hadlaya ama waraaqo lagu hardhay ereyo qalbiga u roon ugu dirayo aaladda casriga ah ee internetka haddiise aad hal waddan wada joogtaan ama aad meel ka wada shaqaysaan waa inaad mar walba ku soo dhowaysaa weji furan oo farxadi ka muuqato nambar 9 qofka aad gaclootay haddii uu ka fog yahay ama meel wada joogtaan noqo qof ka warqaba oo la qaybsada farxad iyo murug wixii soo wajaha nambar 10 noqo qof loo xiiso marka uu maqan yahay iyo marka uu joogo nambar 11 waa inaad tahay qof mar walba ilaaliya balanta nambar 12 ku dadaal inaad u hadiyeyso qofka aad jeceshahay waxyaabaha uu xiiseeyo ogowna hadiyadeynta waxay qayb libaax leh ka qaadataa kobcinta jaceylka nambar 13
waxaad ogaataa inaad kalsooniduna ku kasban karto. Nambar 14 waxaa laga maarmaanaa inaad faraxsanaato inta qalbiga kaa jiida aad soo jeedsanayso. guntii gabagabadii haddii aad intaas samayso adigoo alle ku xiran waad kasban doontaa qofkaad jeclootay insha Allah. daawade barta aad nagala socotaan ee rajada iyo maanta haddaad ku cusub tahay subscribe sidoo kale gambaleelkana furo si aad u hesho macluumaad la xiriira nolosha. wixii talo aad noo hayso barteena commentiska noogu reeb. mahadsanid. sidaas ayaan naga tegaynaa intaanu ku kulmayno mar kale. nabadiin iyo nooli kulantee. amaana Allah.